hirsadyaal kaamkan waliba uu kaamka tawfiiq oo ay kiyaala duleedka degmada waajid ee gobolka Boqol ku dhawaad kunqoysi waliba ka noolana kaamkan waliba xilligan haysto cuniyari eedan weyn dadkan yaa waliba iyo meelan degayna ku dhawaad muddo hal sano waliba wili helne gargaar dhanka bani'aadanimada antiyo badan waliba ku qaahna deegaanada dheer oo nahay hoos kooyan degmada waajid ee gobolka Boqol waliba xilliga hore hayana dad xoolo dhaqato sidaas lamada waliba xoolaha ka waayna abaaraga sokay oo dalka ku jari Ali Aadan Kuulo waliba uu gudoomiyaha kaamka tawfiiq waliba warbaahintan xaqiijiyay in nololada dadkan ka noolan yaata nolol ka noolada oo dhanka gaajida tinka adkaaytay soo onahayna dawladda Soomaaliya maamulka koonfur galbeed sidoo kale hay'ado samafalka ka baaqay in si degdeg iyo wal handeersiyan dadkan xilligan ka dhibaataysan kaamka tawfiiq ee dawladka degmada waajid maamulkan gobolkan isu jiidi hareegantan oodan isu oodi dadkiisu iska shaqeynay gobolkan taas ilaahay gamaad nagaan maamulka jeenka kama had nagaan may eed daliilan ka tarsadane hay'ado samafalka gam aan gudoomiye kaamka aha geeka fursadan aan helay may fadeenan ku faa'iideysid hay'adaha samafalka deeg biixaasha meel kastayo roogan dawladda federaalka dawladda koonfur galbeed anna ilaahay galandis fidsan ilaahay mashana galangneen fidiyan ona dadkiyo madaxan hayanga dadkan ta ka dhibaataysan dadkii dawladda koonfur galbeed maatadii tiyaw oo tan deegaanka waajidna ilaahay marshani way isla ogsanyi inuu nimanka nabadiidka ay wada hireen jiditeedii markan dawladda koonfur galbeed maal wasaaradda dib u dejinta eedan ku gaabade waaba ka soo haysan bay dhowle wasaaraddan eetad deegaan kale hoos kooya jiditeeda hirin an walba nan hayna ba ila masha galbagaan galle oo hor joonku haneenka booqdo hayn see wal heeqib aafamaad janeenka ku kooyo hayn qiibtu waxbarashada janeenka ku kooyo hayn qiibta dib u dejinta dadka maatadan dogaalkan ad aragdan ilaa marsheeha walaylka jaran arag waasan gobobkan aragaasu roobka tuko ilaa mashantu ma ilaahayna tusa ilaa roobku noo feerin oo erno noo deerti waxaana ku mid ah barakacyaalka noolan kaamka tawfiiq waliba niyo deeq bixiyaalka ku codsadena in gargaar degdeg ah la deeraan tan dhibkani waa baneediyay galan gobataano aruurtaano inta ka leedahay waayelkaano inta ku leedahay lana arago roobku afartan wal islaamka ka qaadani ma waayel an lan wal nin gordo wayna isin hegin ilaahay jey wal ka helno fadaan ha gaajo kaleedni maya hanige mado ilaahay mahale hadegaasi oo bedlaw ka hayti ama boqol qolnani qofay habarti lugori lilang an ka qaadani damba konton hano dooshi yo reed ya riska galma haysan dhabaatan tama dhama soo reed dawladda atiin halna noole gabalkan ka dhabooni shambalod ishan mugdi fadhiin soonga nagali lan walna siya malle ilaahay walna siya may fadaan anina noolay tan walayni dhiwaabani dhiyan dhibaatadan anta ma dhaafas ilaahay mahad ii shukriye may fadaan ani raashumni sheentano noolay tan ya fadaan wal una hayna bade noy long mayna seen urka noon ooge ilung ising aragaasan ilaahay mahde hungurinin dhiki soongane dheer wal una ko soomana made afarka ma haysan hiraabsaga ma haysan ilaahay mahad ii shukriye dhibaata anta ma dhaafas ilaahay mahadle la irsaag ilaahay rasuulka lagu sugay isina seen ku fadana noolay tan fadaan mantan dheera gaajina weele soonku ilaahay mahadle anti jirani diidi soon malan ku soona waan unu ka afar waan mantan may fadana irsaagna injoo fadaan Hasan Ali Nadara KGS TV degmada waajid ee gobolka Boqol